nolosha inaad amal dhigin inaad garato dhib kasta oo jirta in berrito sayajcal allahu bacda cusrin yusra in ilaahay subxaana wa tacaala u fudaydinayo xanuunada nafsigii intooda ugu badan haddaad qarsatana xanuun cudwiyana way sameeyaan calool xanuun bay keenaan rheumatism bay keenaan wadna xanuun bay keenaan maxaa la yidhaha sonkarow bay keenaan blood pressure bay keenaan kullu dalik xanuun nafsigi wuu keeni karaa bay culammadu yidhahdaan noloshu weji kastoo xuno ay ku tusto weji fiicanna inay yeelan karto inaad aragto inaad ka eeginoo qudha dhanka xun ama si kale haddaynu u tilmaamno nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay ka kaa hooseeya eeg unduruu ilaa man huwa asfala minkum haddaad adgu xanuunsanayso mid kaa xanuun daranun baad arki haddii faqri ku hayo mid kaa liito kaa faqri badan baad arki ha eegin inta ku dhaanta ee inta badan waxaad u fiirsataa kuwa noloshoodu kaa liidato يعني waxa uu nabigu calayhi salaatu wasalaam inoo barayaa inaad eegto mid kaa hooseeya taa macnaheedu waxa weeyaan inaad ogaato mar walba nicmo inaad adigu haysato maalan qofka aan hantida haysan waxa laga yaabaa inaad aragto mid aan hanti haysan oo caafimaad qaba laakiin haddaad weydiiso wuxuu ku leeyahay maxaan caafimaadka ku haystaa derbigaasaan fadhiya gaajaan u liitaay wuxuu arkaa inaan waxba qabin cagsigiisa waxa laga yaabaa inaad aragto mid milyaneer ah oo inta macaan iyo barashar iyo balaayo dham isugu timi wixiisii wax ka liqi kari la oo dunida dabadeeda haddii dhakhtar lagu sheego la yidhaa waxaad haysataba keen waa lagu caafimaadinayaa ogol hadduu kan caafimaadka qaba waxa la yidhi bal kuwa buka soo egtay hadduu dhakhtarka tago oo waxa dad jiifa iyo wax nin liita iyo wax mid maalqabeen ah naftuba haysato u arko dadka hadduu waraysto yidhaahdo warbal warrama waxay odhan lahaayeen waxaanu haysano caafimaad oo siisan lahay markaasuu garan lahay inta ajsaaran yihi laakiin aanu arkaynin waxay yidhahdaan sixadu caafimaadku waa taaj kuwa caafimaadka qaba saaran mase arkaan kuwa buka mooyaane kuwa kale adigu waxa laga yaabaa inaad dayrinayso leedahay maxaan haystaa waad si caafimaad qabtaa waxaad haysataa caafimaad idan nolosha gebigeeduba oo sida qofka mu'minkaa waxaa la faray inaad eegto ka kaa liita iyo ka kaa hooseeya dhibta haysata bale dhibaatadaa dhib lagu daweeyaa hal qisaan idin tilmaami doonaa saxaabadii nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ku dhacay dagaalkii badar way guulaysteen dagaalkii uxud way guulaysteen markii hore gaaladiina way jabiyeen way kala caymadiyeen waa kala carartay haniimadii iyo wixii bay gurteen iyagoo haniimadii iyo wixii guranaya waa tii dhibtu dhacday saxaabadii buurta dambe ilaalinaysay rumaad ahayd inta iskaga yimaadeen isdhaahay haniimada wax ka gurta khaalid oo gaalada la socduun baa meel godoloola arko xagga dambu soo maray muslimiintii buu dhabarka kaga soo dhuftay mar labaad baa muslimiintii la jabiyey muslimiintii hadda guusha haysatay ayaa waxa ku dhacay jab sheegaya in 70 laga dilo dib loo caymadiyo ay kala cararaanba saxaabada badh baa firdadkii madiina galay taa waxa kaga sii daran iyadoo mushkiladu halkaa marayso ayaa balaaya shaydaan ka dhex qayliyay la leeyahay nebi maxamed baa la dilo laga takhallus intii goobta ku soo hadhay ee markaa dagaalamaysana markay maqleen nebigiiba wuu dhintay ayay iska fadhfadhiisteen ilaa sacd ibnu rabiica axad saxaaba uu soo maro cumar iyo rag meel fadhiyuu yidhaa war maxaa qabanaysaan markaasay dhahaan maxaanu samaynaa dee nebigiiba la diliyay هذا هو ما شاء مكرما كالقاضي saxaabadii waxaasoo mushkiladii ku dhacday ilaahi subxaana wa tacaala siduu u daweeyey buu ka warramaya markii la yidhi nebigiina dhimaya iskaba fadhfadhiisteen ilaahay qur-aan buu soo dejiyey uu leeyahay waxaa rabbi tilmaamaya id tusciduuna walaa talwuuna calaa axad والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون إلهي وحلي واحد حسطان مركزية عيسين بالليلة النبي قاعد يبدي بسوء جينين النبي قلنا حق الدنبيدين كي يريي
ربي وحلي وحيد كو أبال مريه فأثابكم بالليل غما بغم murugo kala dul saaran baa laydinku abaalmariyay culimadu waxay yiraahdaan murugada labaad waxay daawo u ahayd murugadii hore waayo fij'atan baa la tasxiix culimada nafsi aayadan markay sharxay waxay leeyihiin saxaabadii markii hore way jabeen waa murugoodeen oo haziima ku dhacday mar labaad bay haddana murugoodeen markii la yidhi nabi maxamed ba dhibay tii hore waxay ku ilaabeen tan dambe oo nabigii baa dhintay baa la yidhi calayhi salaatu wasalaam mar qura fij'atan waxa cadaaday in nabi maxamed dhibana uu dagaalka joogo goobta taagan yahay dabeetana waa farxeen farxaday nabi maxamed ku farxeen waxay ilaabeen wixii hore oo dhan idan labada ghammigii hore haziimada waxa ilowsiiyay baa la leeyahay ghammigii dambe ah nabigii dhimay markay been noqotayna dib bay u farxeen waxa laga daweeyay xusnigii oo dhan walidaalka baa ilaahay leeyahay likay la tahzanu ala ma fatakum fa athaabakum bal ghamman bi ghammin maxaa loogu abaalmariyay ghammiga dul saaran likay la tahzanu ala ma fatakum baa ilaahay si la idinka masaxatii hore oo wixii hore ay idinku dhacay mushkiladaha aw ilowdaan idan balaayooyinku way ismasaxaan iyadoo balaayo ku haysato mid ka daran haddaad aragto taadii waad ilaabaysaa adigoo balaayo ka badan rajaynaya hadday yarato maalan gaadha kula qallimay adiga iyo afartaadii carruuraba aad mi yarbaashay hadhow baad soo mirowda bal warraba baad tidhi markaasaa lagu yidhi yararkii labaa dhintay waxaa laga yaabaa inaad tidhahdo alxamdulilahi rabbilcaalamiin waayo waxaad tilahayd afartiiba tage laakiin markaan laba qura waad ogashay haddii lababa soo hadhay ilaan halkaad joogtay aad ka fakaraysay waxay ahayd inaad afartaba weydo laakiin haddii lagu yidhi war labaa weli kuu nool waxaa laga yaabaa inaad u aragto musiibadu inay khafiif tahay idan masaa'ibtu waxay yidhaahdaan culammadu badhba badhka kale waa lagu daweeyaa walidaalik baa waxaa la leeyahay war dadka kale dhibtu haysta arka waxaan ku soo koobaynaa waqtigii oo dhammaadaan malaynaya waqtigoos ka yar daraaddeed waxaan ku soo koobaynaa waxyaabaha wax lagu daweeyo waxaa ka mid ah xusnu dhann qofka warwarkiiyo walbahaarkani ku dhaco marar badan mala xun buu qaataa dabeetana wax walba wuu ka shakiyaa inaad maxmalka fiican saarto dhakhtar baad tagtay dhakhtarkii baad hore weyday waxaa laga yaabaa inaad tidhaha inuu ila kulmaa baanu doonaynin ama ninkan waa isnacno inuu daweeyo mar rabo waqtigii waa gaadho waxaa laga yaabaa inuu faylkaagii waayo uu daydaeyo waxaa laga yaabaa in gaadhigii uu soo socday traffic jam dhacay aanu meeshaba soo gaadhin waxaa laga yaabaa xusnu dhanni haddaad ku xambaarto warwar kugu hayn mayso haddaad se mala xun markiiba sii qaadato warwar bay kugu reebaysaa walidaalika baa ilaahay wuxuu inaga nahiyay yaa ayuha aladiina aamanuu ijtanibuu kaiiran min adhann ina bacda dhanni iimun waxaynu u baahannahay oo ka mida waxyaabaha nolosha lagu daweeyo dhibtu markay dhacdo sida loo tasarrufo oo ah inaad u arag mushkilaadka wax weyn ee inaad u aragto shalay baa waxaan idiin tilmaamayay axadu saalixiin la yidhi nin baa la yidhi wuu ku xantay dabeetana sida caadiga ahayd waxay ahayd inaad cadhooto dee marka lagu yidhaha waa lagu xamanayo qoladaasaa ku maagayso waa lagu hadalhayo waxaasay kaa sheegsheegayeenoo dee waxaad odhan lahayd war waa layga taagla'ayay nimankaas duulkaasi waa duul layga taagla'ayay laakiin waxaan idhi intuu socday hadiyad qaaday ayuu u geeyey ninkii fidhiniya waxaa la ii sheegay waxaan u baahnaa maalinta qiyaamaha inaad tarto xasanaadkaagii baad qaybi siisay dee anna hadiyadda baan kugu abaalgudaya hadiyadda tan qaada buu yidhi xantii wuxuu u arkay inay tahay dee nin xasanaadkiisii wax ka bixinaya wixii uu shaqaystay salaadii iyo soonkiisii qayb ka miduu kuugu deeqay intuu ku xamanayay waayo aakhire waxaa la yidhi dee marka laysu soo tubo qof walba qofka kale waa looga goynayaa oo xasanaadkaaga dadka loo qaybinaya haddii xasane laga waayana sayi'aadkood idan haddaad si fiican u fakarayso depressionku iyo cadaadisku qofka kuma dhaco waxaa ka mida baynu leenahay qofku inuu garto amal inna maca alcusri yusra nolosha inaad amal dhigin inaad garato dhib kasta oo jirta in berrito sayajcal allahu bacda cusrin yusra in ilaahay subxaana wa tacaala u fudaydinayo waxaan ku soo koobayaa wakhtigoos ka kooban daraaddeed xusniga iyo igti'aabku
marka hore qofka muslimka waxa keenay inuu ka dheeraado وهذا التوحيد كاغي عقيدة هذه الدين هذا سفي عن الرميسته أدونك يقيمه سسنة بوفهمتد آخرة يا واحد ضمبية أبا المرة سوى نكسن وقرتد امتحانك الربي قضاء قدر كيسي هذه أنت كاغسو هاكتي سوى نكسن أدو فهمتد تيرانيون ميسد أحكو دعيك تيرانيون ميسد لكن قفك استوى حنونك كدعي وحن لنا دخاتير تلا حديد أطباء نفسية هو دخاتير وحدة وية وحين قاعدة صوت شيغني واستعمالان زايد وحي كلو استعمالان دو زايد قاركود وحي كلو استعمالان كهرباء الكتريكال شوك من نوكسونو soomaalida waxyaabaha ka qaldan waxa kamid ah xanuunada qaar bay ceeb u taqaana qarisa qaarna way sheegtaa war xanuunada waa isku mid hadii wadna xanuun kugu dhaciyo hadii beer xanuun kugu dhaciyo hadii neerfu ku xanuun iyo dumada ku xanuuna waa isku mid midna adigu maad keenin mid walbana ilaahay baa keena waa isku mid oo mid walba cudwi jidhkaaga gobol ka mid un baa buka كودنو حنونا يا وحورنا يا وني ودنا حنونا يا واليتا كمدو حنونا يا سو قرصنا يا حسرنا يا وحلوارن درو واشي ووالي هادو يدا مدخ حنونا كوان كلا لفتودا بوفس كسو ريدو يورر يا ورو واشي اسكا يلالي ورماها وحنون عادي يقف بني ادم كا كدعا ديبريشن كنا waa xanuun حتى hadaan la daweynino qofku si caadi ah u dhaqmo laga yaabo 9 months meelahaas inuu kaga bogsado laakiin haduu dhakhtar si fiican ula xidhiidho waqti yar buu kaga bogsanaya bidin Ilaahi ta'ala إذا النبي يقول عليه الصلاة والسلام إلهي حنون ما سودتشين إلا داودي سنو سودتشي يا دوما إلهي استوي أبو النبي عليه الصلاة والسلام مدنا اسكو يا الله مورن استوي حنون لغاية أبو طبعا مروكينين أين تقاطين تكجبك سن لهيد أيو قفكو قرصنا يا إلا ينتو مرضى كردقنا يا مكوالنا يا أما وضفر يا اسكود يا إنه إذا هذا ورم حنوصنا يا حنون كل تلينيا وحنون بني آدم كقدعة حنون هذا كلنا لمده كعلى الحنون كهيا يكاودنا حنون كهيا يكابر حنون كهيا يكامسك حنون كهيا مدول بعض وكمد شركي سحنونيا مدنا يسقوا مكينين مدول بنا الداولي مدول بنا ولا الدوين كره خاطر تمدح الدويسان ما هذا ضدك الدرجون عبسيه وح لقوا شام وح دقن كهذا يكسيني وروا دواء عادية إذا وحين إذا كل تلني وحويان كو قفك مؤمن كي هذا مسائل كان خارج جاي ويسكت دوين كرا لكن كون يقوى كلبه هذا لا تشتت الطبيب كاغا ولي خاصة وحن شعلان لها الطبيب كنفسي إنه طبيب نفسي ومسلم النقضة وهي كاسة قرنا يسيد أدو فكر يصير رسمي جا مسكحدو هذا يسقل دنو فكرته وحي سود ديسا أوامر قلدن أما qanjidhada jidhka ku jira dheecaamada soo daaya waxay soo daynayaan dheecaamo qaldan oo ama dheecaan loo baahnaa inuu soo baxabaan soo baxaynin dabeetana jidhku sidii wax u maamulaya qaldamaya ama dheecaan quantity yar looga baahnaa buu jidhku dheecaan badan ka soo daynaya dabeetana jidhku sidii u shaqaynaysa qaldamaysa xanuunada nafsiga intooda ugu badan hadaad qarsatana xanuun cudwiyana way sameeyaan على الحنون بيكانان روماتيزم بيكانان وضن حنون بيكانان على سكرو بيكانان بلاد بريشر بيكانان كل ذلك حنون نفسي هو كان كرابع علماء هذا marka inta xanuun nafsi fudud iska daweyn lahayd hadhow yaad la eedaadin dhiikariya kaadi macaan ama wadna xanuun yaad la eedaadin xanuunku waa isku wada mid ah waxaad u baahantii hadaad buufis dareento hadaad buuq dareento hadaad seexan weydiyo haday cadhadu ka badato هداد عرب بدن درينتو هداد شك بدن درينتو هداد وح مقمقشو سيدي قف عضدون مقليا أما إن لحمنايو هداد مدبا أركتو قفون إشيسو مرك قاركو ضد غير عادية وحركيان مرر بدن بانيش ممكن يوحنا يسوشي جيسان هاي أيهن حنون سايكولوجيكال أو باهنا دختر تكتو إذا إخوتي في العقيدة وقهرين وحن كلنا عقيدة هذا الصح وصح وردقاقا بدي ذكرقاقا لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله صلق النبي بطصو وقال قدقا عبادات كاقا بطصو ربي كل سوندي سبضي
basharka iyo waxay walaaqayaan ilow intaa kadibna haddaad daawo u baahanta isdaawee oo ayar dhakhtartag. asalaamu calaykum waraxmat ullah.